بسم الله الرحمن الرحيم maanta taariikhdu tahay 4 bisha 2017 waxa xisbiga ucud ka soo baxay war-saxaafadeedka oo ku socda dhammaan xubnaha golaha deegaanka ee xisbiga ucud uga soo baxay dhammaan gobolada iyo degmooyinka oo guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka oo guddiga doorashooyinka qaranka ujeedo la socodsiin xubnaha golayaasha deegaanka ee ka tirsan xisbiga ucud mudanayaal sida ku cad qodobka 11aad farqadiisa afraad ee xeerka nidaamka ururada iyo xisaabta siyaasadda xeer lambar 14 2001 xubnayaasha golaha deegaanka waxa ka reeban inay ku biiraan xisbi aan ahayn xisbigii ay ka soo baxeen sidaas darteed waxa la socodsiinayaa inaydan ku biiri karin xisbi kale oo sharcigu idinka reebay ciddii ku dhawaaqday inay ka baxday xisbiga ucud ama ku biirta xisbi kale ama taageerta sida sharcigu dhigayo waxay lumin doontaa xubinnimadii golaha deegaanka waxaana loo soo buuxin doonaa sida xeer lambar 20 uu sheegayo xubinta lagu arko sida imika aynu ka hayno shirka isniinta ay qabanayaan xisbiga kulmiye ee sharci darrada ah ee ay ku urursanayaan golayaasha deegaanka waxaan leenahay xubintii xisbiga ucud ka tirsan golayaasheedii deegaanka ee timaada shirka waxaan u mari doonaa xeerka 20aad 2001 waxaana gobolladoo dhan nooga diyaariyay degmooyinka xubnaha ciddii soo buuxin lahayd ama maayarra ha noqdaan ama xubno golo deegaan ha noqdaan xisbiga wuxuu la socodsiinayaa guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisaabta qaranka iyo guddiga doorashooyinka qaranka inay ka gutaan waajibaadkooda sharci xubin kasta oo ka mid ah golayaasha deegaanka oo ka soo baxay xisbiga ucud haddii ay yimaadaan shirka xisbiga ucud wuxuu mar kale uga digayaa xubnayaasha golaha deegaanka inay ku kacaan fal keeni doona inay lumiyaan xubinnimada golaha deegaanka markaa xisbiga kulmiye waxaanu leenahay dalku wuxuu ku socdaa waxa weeye waa sharci dastuur baynu leenahay xeerar baynu leenahay haddii ay ixtiraami weydaan xeerarka dalka cidna idinkama itaal-yara waxa weeye axsaabtoo dhan bay dan u tahay in la ilaaliyo xeerarka dalka gaar ahaan idinkay dan idinta waxaan leeyahay wixii sharci darraa waa inaynu iska ilaalinaa xisbiga kulmiyana waxaan uga digaynaa sida madaxdooda qaar ka tirsan ay la hadleen golayaasha deegaankayaga sida gobolka Gabiley oo kale xubno ka tirsan golayaasha deegaanka rag hoggaanka ka tirsan xisbiga kulmiye ay khadka taleefanka kula xiriireen iyagoo ku ololeynaya inay shirka keenaan xubno ka mid ah xubnayaasha golaha deegaanka ee xisbiga uga soo baxay haddaba annaga waxba na yeeli mayso waana naga diyaar xubinta shirka ka soo qayb gashay bedelaadeedii gobol kasta iyo degmo kasta waanu diyaarinay xubin kasta oo ka soo qayb gashay shirka ciddii lagu bedeli lahaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh